madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo xarunta madaxtooyada kumeeldeerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ma isu qaabilay wafduus oo hogaamiyay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee qaabilsan arrimo Soomaaliya ambassador James Iswan oo wafdigay qayb ku hay wakiilka midowga Afrika iyo safiirada Norway iyo UK ee qaabilaad kureed madaxweyne lafta gareen iyo wafdiga qaaday kulan dhowr saacadood socday oo yan ku aransadan geedi socodka doorashooyinka dardargelinta habraacyada iyo hasaareen gudiga iyo waliba sidlan ilaalin lahay qoondada haweenka ee iyo kaleyn lamada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulanka iyo asaas oo kale may diiradda ka saareen madaxda sidlan xaqiijin lahay amniga goobo doorashooyinka iyo ku dhiyayaan ee kulanka kureed madaxweyne lafta gareen iyo ambassador James Iswan iyo may wada jiray iyo onkor meerena howlka la ka taw baran doona ergada iyo doorada doonaan xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba xafiisyada iyo ka shaqeeyaan gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kan heer federaal ee kormeerka kureed madaxweyne lafta gareen iyo ambassador James Iswan iyo wada jiraan goobadii shirjarayd iyo warbaahinta iyo kala hadleen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo koreen warbaahinta la hadalay ma isu tilmaamay inta kulanka James Iswan iyo wada weeldadan iyo diiradda ka saareen arrimo ku jara dalka iyo ka horeeyaan doorashooyinka maanta waxaa noo yimid wafdi ballaaran oo hogaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. James Iswan safiirka European Union safiirka African Union iyo safiirka Norway iyo wafdi kale oo ballaaran oo la jiray runtii waxaan aad uga wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha hortaagan iyo sidii hore loogu socon lahaa loona fulin lahaa heshiisyadii lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madasha qaranka iyo habraacyadii la soo diyaariyey sidii loo fulin lahaa ugu dambeynna waqtiga jadwalka uu ku qornaa oo guddiga fiid ay soo saareen ugu dambeeyey loo bilaabi lahaa maadaama doorashadii upper house aqalkii sare ay dhammaatay gabagaba ay tahay isteedyada ay soo gabagabeeyeen inta kaloo yaroo hartayna waqtigooda lagu dhammayn doono si loo bilaabo tii aqalkii hoose iyo qaabkii loogu diyaar garoobay ayaan aada uga wada hadalnay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay doorashada amnigeeda iyo security-ga doorashada sidii uu noqonayo iyo sida loo diyaarinayo sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaala dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka koonfur galbeed oo tartamayaasha ah ay heli doonaan cadaalad iyo doorasho xor ah ayna heli doonaan waqti ay ku campaign gareeyaan iyo ay bulshadoodii iyo constituency-goodii iyo deegaanadii laga soo dooranayo ay kaga hadlaan sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in waqtigii ugu dambeeyey jadwalka ahaa ee ay soo saareen guddiga fiid inuu ku dhaco waqtigeedii doorashada ay ku bilaabato haddana ay sii bilaabato qabanqaabadii waxaan kaloon soo kormeernay oon aragnay goobihii aan ugu talagalnay inay ka dhacdo doorashada oo ilaa iyo 3 goobood ah iyo sidii loo diyaariyey iyo sida ay u diyaar garoobeen kulanka waxaa qayb ka ah guddiga seat South West sida ay ugu diyaar garoobeen iyo goobihii ay diyaariyeen iyo xafiisyadoodii iyo qalabyadii oo hadda u imaan doonto sidii loo dhammaystiri lahaa arrimahaasaan ka wada hadalnay si aad iyo aad u fiican yaan iskaga fahanay arrinta amniga sidaasoo kale iyo qaybaha ka qayb noqonaya ee sidii loo horumarin lahaa intaba waa isku fahanay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii uu u socon lahaa dadaaladii iyo waxa yarka ahaa oo meediyaha dowladda federaalka dhex maray madaxda in aanan la joojinin dadaalkii iyo isku dayadii fiicnaa oo aan wadnay oo xal u helista ahaa si aanan dib loogu noqonin ayadana aadan isugu fahanay waana wadaynaa dadaalkii insha allahu tacaala sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii horey u socday oo humanitariankii
iyo developmentigii mashaariicdii socotay inay socdaan waxyaalihii ay deeqihii iyo gurmadka caalamiga ahana uu sidiis u socdo si guul ahoo qurux badan uu noogu dhammaaday aad iyo aadaan ugu faraxsannahay mar labaad waxaan soo dhoweynaynaa safiirada soo dhowaada wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay in qaabilsan arrimo Soomaaliya ambassador James Iswan dhinajay mayso bogaadiyay doorka madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen uu ku qaadaday dhaxdhaxaadinta ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mayniyo ka bogaadiyeen intii sii dardargeli sidii xal waara iyo indeera lahayn madaxda qaranka wana xasiloona siyaasadeed dalka uusan ka dareera lahay mandhinaga kale uu madaxweynaha ka amaanay anti doorashadii ku dhiiday xubno aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee qabsoontay magaalada Baydhabo qoondadii oo kala hayeen haweenka la ka ilaali waan uu ka bogaadiyay intii xubno aqalka hoosan uu ilaali doono qoondada haweenka iyo kaleeyeen President Abdiaziz for efforts to mediate between President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo and Prime Minister Mohamed Hussein Roble. We sincerely hope that his efforts and those of other federal member state leaders and other mediators will help resolve any remaining differences. The need for dialogue, goodwill, and putting the needs of all Somalis first and foremost is especially important now to allow Somalia to continue on its path of stability and reform. kulankan geeka ku qabsoomay qasriga madaxtooyada magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee indhaxay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo saaxiibada beela caalamka yasaas oo kale mid ku qayb galay wasiirada qorsheynta arrimo gudo agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo la taliyaalka madaxweynaha mayna kulanka saacado uu socday ku aransaday geedi socodka arrimo doorashooyinka dalka iyo sidii xal waara ku deera lahaay khilaafka dhagalay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed madaxtooyada magaalada Baydhabo